walaalaha qiimaha badan waa salaamantiin meel kasta oo dunida daafeed ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena update-ka ciyaaraha wararka ugu dambeeya haday noqoto arrimaha suuqa sidoo kale sheekooyinka maanta taagan gelinka dambana oo kusoo qaadan doona saacadihii ugu dambeeyay newsyo badan ayaa saaxiibada iska soo daba dhacayeen hadday taa markii kuugu horeysa soo booqanaysa channelka subscribe noo saar sidoo kale waxaa idinka codsana saaxiibada muuqaal kala la galay maadaama muuqaalku kala badan yahay oo ka dad gaaris badan yahay sidaa daraaddeed muuqaalkan youtube-ka soo dad badan u gaarsiin waxaa idinka codsana walaalaha qiimaha badan muuqaalka noo la garay dadka daawada dadka laagta noo saara waa kaafi kaleer sidaa daraaddeedna waad ku mahadsantiin aan ku bilaawna qodobkeena kuwa saaxiibada markaan war weyn waxa ka soo yeer ninka lagu magacaabo De Jong sidaan ka warqabna Barcelona waxay cadaadis saaraysaa wiilkan lagu magacaabo Franka De Jong si uu kooxda ugu tago sidoo kale dhankaasi Man United-na uu aaday sidaa daraaddeed hadda waxaa leeyahay De Jong wuxuu diyaar u yahay hadduu Barcelona ka tagaa kaliya inuu aado kooxda kubadda cagta Bayern Munich sida hadda ay maanta soo daawacaysa shabakada lagu magacaabo Marca sidaa daraaddeed midaan waxay culays ku noqon doontaa Barcelona maadaama De Jong weli dalab rasmi u soo dirin kooxda kubadda cagta Bayern sidaa daraaddeed hadda waxaa diyaar ah Man United sidoo kale 25 milyan ay diyaar u tahay inay Barcelona ku sidoo kale 20 milyan ee gadaal ka bixis taasoo ka dhigan 100 milyan qaadista De Jong ay ku qaadan lahayd Man United laakiin hadda wiilkan diyaar uma ahan inuu aado kooxda kubadda cagta Man United hadduu ka tagaa Barcelona kaliya wuxuu diyaar u yahay dhankaasi saaxiibada qiimaha badan Jarmalka inuu aado sidaa daraaddeed welina arrintan isku cankarintaa ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah walle ninkii CR7 markaana war ayaa ka soo yeer sidoo kale sheekada kooxda kubadda cagta Man United oo ka tagaana way isku soo dhamaatay CR7 saaxiibada qiimaha badan xal soo bandhig fanaanada xil ciyaareedka Man United ku ciyaari doonto asagoo saaxiibada qiimaha badan gashan sidoo kale waa kana sawirkan hortan ka muuqdo waliba waa markii away tahay Man United markay ku dheerayso waa fanaanada cadda sidoo kale madow sidoo kale xoog gududna oo ku jira sida daraadda sheekada CR7 uu baxa way isku soo dhamaatay sida daraadda CR7 wuxuu diyaar u yahay kooxdiisa kubadda cagta Man United inuu caawiyo sidoo kale saaxiibada ogaad fanaanada hadda hortan ka muuqato Man United ma noqonaysa markii ugu horeysay ay ku ciyaaraysa maadaama xil ciyaareedka 1986 ay ku dheeshay sidoo kale 91 way ku dheeshay xitaa 96 kana way ku dheeshay sidaa daraaddeed haddana fanaanada hortana ka muuqata ay ku dheeli doontaa markay awaytaan ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Napoli markan ayadana waxay dulaan ku tahay dhigeeda kooxda kubadda Chelsea waxayna ka rabtaa goolahayaha lagu magacaabo Kepa sida saaxiibada qiimaha badan soo daabacay shabakada loo yaqaan Calcio Mercato sida daraaddeed Napoli xirata ninka inay ku qaadato wax loo yaqaan ama sidoo kale Chelsea aqbali doontana weli shaac lagama qaadin maanta ciwaanada saaxiibada iska badiyeen waxyaabo badan ayaa saaxiibada shaaca laga wada qaadaa markaan waxaan qodob badan ka haynaa ninka lagu magacaabo Oliver Kahn sidaan ka warqabo ninkan wuxuu kamid yahay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa kooxda kubadda cagta Bayern ninkan uu hadlay sidoo kale wuxuu yiri ninka waxa inta badan isla xamana in xil ciyaareedkan saaxiibada kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay soo qaadan doonto weeraryahanka lagu magacaabo Harry Kane maadaama hadda ay dhumisay ninka lagu magacaabo Robert Lewandowski sida daraaddeed Oliver Kahn soo hadlay wuxuu yiri ninka lagu magacaabo Harry Kane waa ciyaaryahan top player sidoo kale weeraryahanada dunida ugu qatarsan ciyaareedka laakiin hadda ma ahan inaan soo qaadan sidoo kale wuxuu yiraahdaa soo qaadanayna Summer 2023 ama xil ciyaareedka dambe ayaan soo qaadan doonaa maadaama waqtigaas heshiiskiisa kaliya oo ka hara hal ciyaareed sida daraaddeed ninkan saaxiibada hadda wuxuu shaaca ka qaaday hadda ma soo qaadanayaan weeraryahankan laakiin waxay soo qaadan doonaan xil ciyaareedka dambe sidoo kale dhanka Tottenham saaxiibada markaan fiirno ayada xaggeedana Harry Kane ninkan waa lama taabtaan sidoo kale wuxuu kamid yahay ciyaaryahanada ugu qatarsan ay haystaan sida daraaddeed diyaarna uma ahan inay weeraryahankooda sidoo kale waxyaabaha kale aan soo qaadan karno waxaa kamid ah Chelsea waxay si toos u la xiriirtay kooxda kubadda cagta PSG waxayna ka rabtaa ninka lagu magacaabo Kimpembe haddaba ogaada PSG ninkan haddii ay fasaxaysaa waxay ku fasaxi doontaa sida hadda shaac laga qaaday adduun lacageed gaara 60 milyan ilaa 65 milyan kaliya ay ku fasaxi doontaa ka yarna kuma fasaxi doontaa laakiin Chelsea qorshaha ay wadata Chelsea waxay rabtaa ninka inay ku soo qaadato haddii u badato 45 milyan ilaa 50 milyan kaliya inay ku soo qaadato sida daraaddeed PSG midaas aqbali doontana lama oga laakiin hadda Chelsea si toos ay kooxda kubadda cagta PSG xiriir ula sameeyay ciwaanada kale maanta aan soo qaadan karno waxa kamid ah Man United markaan waxa u dhaqaaqday weeraryahanka Brentford ka tirsan waana ninka lagu magacaabo Ivan Toney saaxiibada ninkan lagu magacaabo kooxo badan ayaa baadagoob ugu jiro sidoo kale ka ciyaar horyaalka Ingiriiska haba ugu horeeyay saaxiibada kooxda kubadda cagta Man United xitaa waxa doonaysa Newcastle sidoo kale West Ham Leeds dhamaan kooxahaas wiilkan baadagoob xooggan ay ugu jiraan laakiin hadda Man United ayaa diiradda saaraysa ninkan sidii ku soo qaadan lahayd
sidoo kale shabakada loo yaqaan Sunday Mirror waxay leedahay ninkan lagu magacaabo Ivan Toney xil ciyaareedka hadda soo dhamaaday kooxdiisa wuxuu dhaliyay goolal gaar ah 14 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay sidoo kale 6 goolna caawin ayuu ka sameeyay sida daraaddeed kooxaha ugu caansan gudaha Ingiriiskana baadagoob xooggan ay ugu jiraan bal markaan qodobada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Arteta uu hadlay sidaan ka warqan Arteta wuxuu macallin u yahay kooxda kubadda cagta Gunners ama Arsenal sidoo kale wuxuu xaqiijiyay wiilka lagu magacaabo William Saliba inaan la iibinayn xitaa ana amaah lagu fasixi doono sidoo kale qorshihiisa oo kamid ah ciyaareedka hadda cusub bilaaban doona sidoo kale Arteta hadlay wuxuu yiri qof walba kooxda ku sugan waa inoo muhiim sidoo kale wuxuu yiri wiilkan hadda xirada tababarka isku muujiyana jaanis fiican waa siin doona sida daraaddeed wiilkan meelnama ma aada sida daraaddeed qorsheyga ayuu kamid yahay taasoo ka dhin kooxaha wiilkan baadagoob ugu jirin in albaabada markaan laga soo xirtin ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa kamid ah kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Barcelona aniga saaxiibada kooxdan waa ka yaabana moogtiin kooxda kubadda cagta Barcelona waxay noqotay kooxda labaad lacagaha ugu badan suuqa gali sidoo kale saaxiibada sida hadda shaac laga qaad adduun lacageed gaaray 100 milyan ay suuqa ku qarash gareysan sidaan ka warqabna Rafinha wuxuu ku soo qaatay adduun lacageed gaaray 55 milyan ay ku soo qaadatay sidoo kale ninka lagu magacaabo Roberto Lewandowski wuxuu ku soo qaatay adduun lacageed gaaray 45 milyan kaliya kooxdan kaliya Barcelona waxa ka lacag badan kooxda kubadda cagta Manchester City sidaan ka warqabna Haaland wuxuu ku soo qaatay adduun lacageed gaaray 60 milyan ay ku soo qaatay sidoo kale Calvin Phillips ku soo qaadatay 48 milyan taasoo ka dhigan 108 milyan ay suuqa gelisay Man City laakiin Man City qasanadeeda isku dheertay maadaama kooxda kubadda cagta Gunners Jesus ay ka siisay adduun lacageed gaar 45 milyan sidoo kale Raheem Sterling lacag adag ay Chelsea ka siisay sida daraaddeed Barcelona ayada qasanadeedana isku dheertirna ogaada Barcelona saaxiibada qiimaha badan culays badan ayaa saaran maadaama kooxdan xidiga fara badan ay soo qaadatay welina looma diiwaan gelin sida laacibiinta ay free ku soo qaatay waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Frank Kessie ka soo qaatay AC Milan kaasoo free ku imaado sidoo kale Andres Christensen asna wuxuu ka imaado Chelsea qaab free ayuu kooxda ugu imaado sidoo kale Ousmane Dembele asna heshiis 2 sano ayay ka saxiixday sidoo kale Roberto Lewandowski wuxuu ku soo qaadatay 45 milyan Rafinha wuxuu ku soo qaadatay 55 milyan ciyaartooyda dhammaan saaxiibada qiimaha badan looma diiwaan gelin kara Barcelona maadaama hadda la leeyahay wili qasanadeeda isku dheertan taasoo ku riixaysa ninka lagu magacaabo De Jong inay ka taqolaysa maadaama uu yahay ninkan hadda wuxuu kamid yahay De Jong ciyaartooyda ugu mushaarka badan sidoo kale ninkan welina uu diiday inuu kooxda ka tagay xitaa Man United saaxiibada qalqaale xoogan ay ugu jirtay laakiin hadda warka ka soo yar De Jong wuxuu noqon doonaa kooxda kubadda cagta Man United in ninkan iska dhaafi doonto sidoo kale ciyaartooy kale suuqa ka baadgoobi doonto maadaama hadduu ninka lagu magacaabo De Jong uu yiri haddaan Barcelona ka tagay kaliya waxa aadi doona kooxda kubadda cagta Bayern Munich sida daraaddeed Barcelona welina isku dhagihin ciyaartooydooda وتكون سنتين صاحبة داش أضاءت المقال كعلك سنونا برنامج كينا ciyaaraha inta badan update-ka saacadii ugu dambeeyay soo dhacay sidoo kale waxyaabaha kala soo dhacna barnaamijyadan dambe ayaa ku ogaan doontaan data markay kugu horeysoo boqonaysa channel-kana subscribe noo saar sidoo kale login inaad muuqaal kale noo saarto aragtida comment noo qreeb hadaa kamid saaxiibada hore noo joogay muuqaalka share saaxiibada waxaan idinka codsana intii caab laga gaarayo inaan la gaarsiisan 500 subscribe taasna dhiirgelin ayaan ka qaadan leena sidoo kale ka ilowina muuqaal kale noo saarto hadaa kamid saaxiibada hore noo joogay muuqaalka share saaxiib wanaagsan adigoo kale channel-ka ugu soo biiraan intaan barnaamij lamid saaxiibada qiimaha badan ku kulmeyno amaana Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh